muslimiinta adduunka ayaa waxa ay aad ugu farxeen hadal xalay ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump intaan ugu gudagalin warbixintan xisaab badan hadii ay tahay markii kugu horeysay waadna soo boqoto waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan muslimiinta adduunka ayaa waxa ay aad ugu farxeen una soo dhaweeyeen hadal xalay ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay khudbada uu jeedinayay oo xilka dalka Mareykanka kula wareegayay waxa uu sheegay in dalka Mareykanka ay hadda kadib ka jiri doonaan oo kaliya wax la yiraahdo laba iyo dhidig aysan jiri karin wax u dhaxeeya labadaasi hadalkii xalay ka soo yeeray madaxweyne Trump ayaa waxa aad u bogaadiyay muslimiinta adduunka hadalkaasi ayaa sidoo kale waxa soo dhaweeyay dad aan muslimiin ahayn oo ka soo horjeeday wax la yiraahdo genderka Donald Trump waa madaxweynihii 47aad ee dalka Mareykanka waxa uu sidoo kale soo noqday madaxweynihii 45aad ee dalkaasi waxaana markii ugu horeysay oo xilkan u la tartamay haweeney lagu magacaabo Hillary Clinton haweeneydaasi oo uu ka guuleystay sidoo kalena uu noqday madaxweynaha 45aad ee dalka Mareykanka sidoo kale mar uu u tartamayay xilkan madaxweynaha dalka Mareykanka ee 47aad ayuu waxa uu la tartamay madaxweyne ku xigeenkii dalka Mareykanka ee Joe Biden uu ahayd madaxweyne ku xigeen ee lagu magacaabo Kamala Harris ayaa waxa ay ka socotay xisbiga la yiraahdo dimuqraadiga jamhuurigana waxa ay soo dirsadeen madaxweyne Trump oo u tartamayay tartan adag kadib waxa madaxweynaha 47aad ee dalkaasi noqday madaxweynihii 45aad ee dalkaasi oo markale soo laabtay waa Donald Trump ayaa khudbadiisii xalay oo ujeediyay oo ka koobnayd 32 daqiiqadood waxa uu ku soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi sidoo kale waxa uu ku soo hadal qaaday xaaladda marinka Gaza madaxweynaha khudbadiisa si wata ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday dadkii soo galay intii uu ka maqnaa xilka dalka Mareykanka isaga oo sheegay in dalkiisa uu ka musaafurin doono dad badan oo si qaldan ku soo galay waxa uu si gaar ah diiradda u saaray oo uu carabka ku adkeeyay in dalka laga musaafurin doono dadka dambiyada ka galay Mareykanka khudbadiisii 32 daqiiqo ka koobneed ee Trump uu jeediyay xalay ay waxa ay soo jiidatay indhaha caalamka hadalkii yar ah oo uu ku dhex daray khudbadaasi oo ahayd maanta laga bilaabo Mareykanka kama jiri doono wax aan ahayn laba iyo dhidig Mareykanka ayaa horay waxa uu mamnuucay intii uu xilka hayay madaxweynihii xalay ka dagay xilkaasi Joe Biden in dumarka ay ilmaha iska soo ridaan oo ilmaha ay sida qaldan ku qaadeen banaanka iska keenaan taas oo markii hore Mareykanka ka ahayd wax caadi ah sidoo kale Mareykanka waxa uu ka mid yahay wadamada ugu badan ay ka jiraan wax la yiraahdo gender iyo others taas oo macnaheedu ay tahay wax u dhaxeeya rag iyo dumar iyo sidoo kale wax aan intaasiba ahayn laakiin madaxweyne Trump ayaa xalay waxa uu soo gabagabeeyay oo uu soo afjaray wax la yiraahdo gender iyo wixii la mid ah isaga oo sheegay in lab iyo dhidig oo kaliya ay ka jiri doonaan dalka Mareykanka